war-saxaafadeed ka soo baxay wasaaradda arrimaha gudaha Somaliland oo ku saxeexan yahay wasiirka wasaaradda arrimaha gudaha Somaliland waa Maxamed Kaahin Axmed ayaa waxay ku cadeysay in dhalinyaradii hubka la fuushay buurta gacan libaax ay xukuumaddu wax allaaliye waxay u raacaysaa aanay jirin halkaana arrinka lagu soo xiray qoraalka ka soo baxay wasaaradda arrimaha gudaha Somaliland ayaa waxa uu u dhignaa sidan annaga oo tixraacayna go'aankii ay soo saareen odayaasha iyo madax dhaqameedka dhexdhexaadinta ee ku taariikhaysnaa 27 Agoosto 2023 ee ujeedadiisuna ahayd in lagu xalliyo khilaafaadka doorashooyinka iyo arrimaha buurta gacan libaax annaga oo tixraacayna aqbalaadii madaxweynaha Jamhuuriyadda Somaliland oo madaxweynuhu isagoo danta qaranka mudnaanta siinaya uu ku aqbalay go'aamadii odayaasha isla markaana uu soo saaray wareegtadii madaxweyne ee 30 bishii Agoosto 2023 oo ku socotay shirguddoonka golaha wakiilada si ay go'aamadaasi u waafajiyaan shuruucda dalka qoraalkoo sii socday waxa wasaaraddu ku tiri annagu oo tixgelinayna hawsha sharci ay gacanta ku hayaan golaha wakiilada Jamhuuriyadda Somaliland ee ku howlan iswaafajinta go'aamada loo arkay danta qaranka iyo sharciga dalka iyadoo wasaaradda arrimaha guduhu ay mudnaanta siinayso midnimada nabadgelyada guud iyo nabad ku wada noolaanshaha bulshooyinka Somaliland isla markaana dhiiri gelinaysa cid kasta oo kala shaqeynaysa arrimaha ay ka mid yihiin isla markaasina ay ka midaysan yihiin odayaasha dhaqanka oo ahaa sidii loo soo afjari lahaa jabhadda ku sugan buuraha gacan libaax qoraalkoo sii socda ayaa waxa lagu yidhi iyadoo oo aanu raacayno aqbalaadii madaxweynaha Jamhuuriyadda Somaliland oo ah mas'uulka ugu sarreeya dalka waxay wasaaradda arrimaha guduhu soo saartay qoraalkan oo ay ku cadeynayso inaan dhalinyaradii hubka la fuushay buurta gacan libaax xukuumaddu wax allaaliye waxay u raacaysaa aanay jirin halkaasna lagu soo xidhay arrinkaasi oo lagu soo afjaray waxaanu rajaynaynaa in cid kasta ay khusayso arrinkaasi sidaasi ku aqbalaan oo arrinkaasi halkaasi ku soo xidhmo